اتاجر ولا اعرف اسمسر ولا اعرف اقاول ولا ماليش في القصه دي كلها. انا راجل مرحب يا هلال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي ولا خلبقة من الأردن كنت شفتين رمضان كريم كل عام وأنتم بخير. آدي وما سنتين سيدو خروح بدل مرة ولي بعد إلى سعوتان عد برنامج كي يقول دادي إنسان ما أنتو حربا إنا كهضلو دعض اللياب له كدعضي دلك مصر خاصة قاهرة مش أنا عن كل نولنا هاي ننو حاجري كابتن قصدو حيكون بلا ونسان قصدو حيكون بلا ونسان سيدة بل أنسل دعوانا أصحابي رمضان. وواحد زميل تاني أخذ الرحلة بتاعتي. طلعنا من القاهرة رحنا الرياض. هو كان في حفلة هو بيعملها هناك. فبعد ما حوالي ساعة أو ساعة وشوية من الطيارة وحو يري waxaan rixlada lahaa maxamed ramadaan mid ay saaxiib yihiin ninkii waa baaqday waxa diyaaradda lagu soo bedelay maxamed ramadaan anagana hadda marka waxaan socon yiri dalka Sacuudi Arabiya waliba caasimadda Riyaad ayaan u socday marka maxamed ramadaan diyaaradda sidii ku soo raacay balan silsi daawan asxaabi احنا الطيارة بتاعتنا طيارة برايفت، طيارة خاصة مش طيارة كوميرشال. يعني ما فيهاش عوامل السيفتي بتاعت الطيارات الكوميرشال اللي هي باب مدرع بين الكابينة وبين الركاب. لا انا بيني وبين wuxuu yiri diyaaradda aniga aan waday waxay ahayd diyaar khaas ah maahan diyaarad shacab oo dhan loogu talagalay yani qofka diyaaradda soo kora iyo aniga meesha diyaaradda aan ka wado yiri waxa noo dhaxayso waa wax yar oo basiid ah ayaa noo dhaxaysay wax saas u kala fog maaha adiga waxa waaye yani adiga laba talaab qofka markuu soo qaado diyaarad guduhu ku jira waa diyaaradda maahan diyaarad yani weyn ah waa diyaarad khaas ah loogu talagalay dadka fanaaniinta ama dadka aktaryaalka ama loogu talagalay madaxweyneyaalka loogu talagalay ahayn diyaarad yani oo aad u yar ahayd bal meesha nasi maraysa silsi daawana راكب متر ونص او مترين. يعني الراكب اللي قاعد شايف الاثنين الطيارين وهم طايرين، وبمنتهى البساطة انت خطوة واحدة هتكون عندي في الكابينة. وهو ده اللي حصل فعلا. انا المساعد بتاعي اللي كان معايا في الرحلة دي استأذن يروح الحمام وده موضوع عادي جدا. لقيت الفنان محمد رمضان واقف جنبي وبيقول لي استأذنك اخد صورة لقطة كده عشان افرجها لابني. wuxuu yiri midka kale ila shaqeynay kabtanka ahaa ayaa waxa iga codsaday yiri inaan mar suuliga aado suuligii sidoo ku aaday anigu meesheedaan fadhiyay waxaan arkay yiri mar mufaajaca inaan saan markaan u jeestay maxamed ramadaan oo kurkiga taagan oo dhahayo kabtan waan ku bareeyaa codsi iga tahay waxaan rabaa inaan isku sibiro diyaaradda anigoo wadaayo yani anoo wadaayo kale inaan isku sibiraan rabaa ma iga aqbalaysaa wuxuu yiri ها يعني wax sahlan ma ahan ها yiri sibirkay isku ogaayeen wala si daawan asxaabi وقاعد على الكرسي. يعني دخل قاعد على الكرسي. احنا بنتعامل مع ناس ناس على مستويات عالية جدا، أمراء ورؤساء جمهوريات، وعيب ان انا لما حد يقعد على الكرسي اقول له قوم. فاوكي خلاص انت هتاخد اللقطة اللي انت عايزها تمام بس من فضلك. wuxuu yiri maxamed ramadaan markuu saas iga codsaday kursigu ku fadhiistay yiri aniga waxaan isku ogeyn isugu taagan bis inuu wax sameesto kursigu fadhiistay anigana ceeb bay ila naqatay yiri qof caan ah la yaqaana fanaan ah filmaanta jila oo hadana sharaf iyo karaamo diyaaradda ku saaran in aan ku dhaho kursiga ka ceeb bay ila naqatay yiri laakiin waxaan isku ogeyn sibirka kaliya waxaan arkay yiri maxamed ramadaan oo yani diyaaradda yani meesha laga wadaayo wax iyo qabsanayo أنكو ده مركز دم بواقلة وحاني ولا إيه ما تلمسش حاجة من اللي قدامك يعني. قال لي طيب ممكن أحط إيديا على الباترفلاي بتاع قلت له حط، ما هو الطيارة كلها كنترولد لوكد معايا أساسا. أنا كابتني أنا كابتن في مكاني والطيارة كلها أندر كنترول أوتوماتيك بايلوت لوكد. فتحط إيدك ما تحطش إيدك ده لن يؤثر في السيفتي بتاعي وبتاع طيارتي ولا 1 في المليون. وانا كل اللي بفكر فيه او يعني انا جوايا
زي اي شخصيه من الشخصيات اللي بتطلع معانا في الطياره، بتطلع بتاخد صوره كتذكار ليها، مش ان هي صوره علشان تنزل في ميديا او تنزل في فيديو كليب او كلام من ده، لان ده طبعا ده الف ب ان ممنوع حد يخش الكابينه. wuxuu yiri ma qabsan karaa meesha diyaaradda laga kaxeynaa yiri. wuxuu yiri may waa khalad uu yiri inaad qof bini'aadan qabsado, aslan diyaaraduna waa diyaarad helicopter oo yar ah. marka wuxuu yiri bis khalaas isku sibriya kabacdigiis wuxuu sameeyay yiri meeshii uu qabsaday midda koowaad uu sameeyay taas ahaa. midda labaad wuxuu yiri anigu qof walba diyaaradeeda soo kara ama diyaaradda soo kara sawir waa iskaga qaadaan yiri gudaheeda, sawir inay iskaga qaadaan caadi ilmahooda wax u dirsadaan, laakiin balanteena ma ahayn yiri inuu social media soo dhigo oo inta soo khaldaabato waxaan igu dhacaan. bal meesha noo sii joogtay ممنوع حد يخش الكابينه بس. فانا طبعا فوجئت جدا ان الموضوع بقى فيديو ونازل، حتى واحنا راجعين من الرياض هو كان راجع معايا برضه، قلت له اللي حضرتك عملته ده هيقفل بيوت ناس. الفيديو اللي نزل ده هيقفل بيوت. قال لي لا ازاي، ولو في مشكله انا اشيله حالا من الميديا. قلت له تشيل ايه، ده في مليون وكذا مشاهده، تشيل ايه؟ قال لي لا انا ليا ناس هتكلم معاها وما تقلقش ولا دقيقه واحده يا كابتن، والموضوع ان شاء الله هيخلص. طبعا wuxuu yiri maxamed abaan markan saas sacuudiga u tagno oo riyaad u tagnaa caasimada, haddana mar labaad way la soo laabtay isla diyaaradii aan ku soo laabanay. markaasaan la hadlay waxaan ku yiri maxamed abaan waxaa sameysay waa khalad, videoga inaad dhigto social media waa qalad. wuxuu yiri isla haddaan ka saaraya haddii dhibaatada kaaga amaanayso. wuxuu yiri maxaad ka saaraysaa hadday ugu yar tahay 2,000 ama 10,000 ama 15,000 ama 50,000 oo ayaa daabatay. saaritaanka hadda aad saaraysid maxay micni kusoo kordhinaysaa, waayo dadkii dhan baaba wada daawaday. markaas yiri maya anaa ka saari karay wax weyn maaha, idoo saastaan ka saari karay. طبعا انا رجعت من الرحله دي على التحقيق في الوزاره، وتبعها طبعا قرار الايقاف مدى الحياه. انا القرار اللي جه من الوزير السابق واخد بال حضرتك بايقاف مدى الحياه عن الطيران وعدم ممارسه اي مهنه تمت للطيران مثلا. يعني مش بس ان انا ما مارسش الطيران، لا ده انا كمان حتى اي شغل في مجال طيران انا ما اشتغلوش. فهل النهارده حد يقدر يجيب لي اللايسنس بتاعتي تاني وارجع تاني؟ ده يبقى يا ريت، لان انا ما يهمنيش تعويضات الدنيا كلها تمام، على قد ما انا كان فاضل لي في تاريخي فاضل لي 3 سنين ونص، اتمنى كنت اخلصهم واطلع بتكريم مش اطلع بايقاف بعد تاريخي ده كله. صدمه. wuxuu yiri shirkadaha diyaaraanka ama xukuumadda dalka Masar yani meesha laga xukumo diyaaradaha iyo waxaasi kul anigu aqoon saas uma leeyni. wuxuu yiri horta shaqadii waa laga soo saaray midda koowaad waa laga soo eriyay. tan labaad uu yiri cumriga inta kale min diyaaradda inaan wada laga miyaabo, waayo clipkan yar oo social media la dhigay shirkadii dhanba bay soo ruqsisay. حتى dawladda Masar yani waxa go'aan laga qaatay yiri mar dambe inaan diyaarad aniga aan kixinin ama gacanta aan saarin waa clipka yar dartooda. wuxuu yiri maanta shaqadeeda intaas aan ku waayay, sharafteeda karaamadeedana ay ku dhuntay, waxaan sameeyay waan garan la'ahay. yani wuxuu yiri weligeyga ninkan aan xun limadeen sumad xuman magaalada ay magalin yiri clipkan yar oo kaliya ugu duubane waxa soo dhibaataan ka maraya balan sirsi daawana asxaab. لان انا عمري ما كنت اتخيل، عمري في حياتي ما كان يجي على بالي ولا واحد في المليون انه ممكن يعمل كده خالص. يعني امبارح هو كان في المداخله مع الاستاذ عمرو اديب بيقول له لا الكابتن كان عارف اني بصور فيديو. انت النهارده اي كاميرا بتصور فيديو، اي كاميرا بتصور فيديو. وانت لما تقول لي انا عايز اخد صوره واخد بال حضرتك وانا في الطياره، طب ما هي الطياره واخد بالك عشان العدادات وعشان بتاع، فبتبقى الصوره فيديو، لكن مش فيديو عشان اعمل بيه كليب، ده فيديو لصوره، انت بتاخد صوره لنفسك، حاجه للذكرى فقط لا غير. هو نزل في بعض الجرايد مش فاكر كان اساميهم ايه، ان هو عرف ان الطيار اتوقف، فكتب قال انا مش هسيب الطيار وهعوضه عن الخساره دي، وانا ما يرضنيش انه يتاذي بسببي او انه يحصل اي حاجه.
نتيجه خطا مننا. بس هو ده اللي اتعمل. طب انت فين؟ انا حاولت اكلم الفنان محمد رمضان اكتر من 40 50 60 مره، هو او اخوه الاستاذ محمود رمضان، لدرجه ان لما ما بيردوش على التليفون طيب انا هروح اشوف في المكتب بتاعه. عرفت طريق المكتب بتاعه اللي هو في قدام نادي الصيد، فرحت هناك طلعت له فوق. wuxuu leeyahay kliibkan hadda uu duubtay aniga balanteeda ma aanu yiri kliib inuu diyaaradda dhexdeeda ku duubto ama video ku duubto oo social media soo dhigo, laakiin waxaan ku balan yiri inuu sawir caadi iskaga qaado. sawirkan wuxuu yiri qof waliba soo galaa diyaaraddan khaaska aan qof ku qaado kliib yar oo sawir ah iskaga qaata uu yiri, laakiin video waa ka mamnuuc yiri. hadda shaqadii waa laga soo saaray uu yiri. محمد رمضان waxaan la hadlay 60 kumar waan la hadlay yiri ma anfacay video ma anfacay video ma anfacay video wala hadalkaygu uu sadaqo waa yiri nihaayadina hadda meesha san taaganahay. wuxuu yiri waan baxay uu yiri maanta waan raadiyay maxamed ramadaan telefoonka wuxuu yiri waa iga qabu waayay waan raadiyay uu yiri meesha uu jooga maktabku leeyaan tagay uu yiri sidoo kale waan ka soo waayay walaalkiisa la soo kulmay ayaa la soo hadlay bal meesha nasi maraysaa aan isla sii daawana asxaabay. للاسف ما لقيتوش. لقيت المستشار القانوني بتاعه الاستاذ عبد الغني شوشه، راجل مؤدب جدا ومهذب جدا جدا جدا. ولما قابلني بقول له انت عندك فكره عن الموضوع؟ قال لي طبعا عندي فكره والموضوع خلصان، والاستاذ محمد لا يمكن ان هو هيضر حضرتك او ان هو هيتسبب في اذيه لحضرتك، والموضوع ده بالنسبه لنا خلصان تماما، بس معلش دينا فرصه يومين ثلاثه لان هو مسافر المغرب بيعمل حفله هناك ولما يرجع هتصل بحضرتك. عدى اكتر من 10 ايام محدش اتصل، فكلمته تاني، كلمت الاستاذ عبد الغني اللي هو المستشار القانوني، فقال لي لا اصل هو جه وكان في سفريه تانيه للرياض قاعد فيها 4 ايام، اول ما يرجع هكلم حضرتك. طبعا برضو 10 wuxuu yiri ninkii maxamed ramadaan ahaa dhowr mar maktabkiisa ku soo laabtay saan hor nagu sheegay sida uu taqaanay maxaami ama qofka meesha jooga mas'uulka ka ah ayaan la kulmay yiri maxamed ramadaan oo baahanahay. wuxuu yiri maqribi uu socdaa meesha wuxuu rabaa kliib yar inuu ku soo duubo ama xaflada uu aadaya 10 cisho ka bacdi insha Allah bidilal kariim anaga kula soo hadli doono kula soo xiriiri doono hadduu Allah u diray la ka noqdo naga warsugo waayo uu yiri waan ka soo tago yiri 10 bari waa dhamaado yiri waqti badan aan ku sii darsamay waan sii wuxuu yiri waxaan ku yiri maxaa dhacay markaas ay sii dhahay hadana imaaraadku aaday 10 cisho soo maqnaanaya 10 cisho markuu soo laabtana insha Allah bidilal kariim uu soo laabanaya waad kulmaysaan uu yiri wili wuxuu yiri wax cad kama hayo aniguna mar dambe ma garaacin wala sii daawo تانيين. فانا مش هتكلم مع حد كتير بقى خلاص، يعني انا ما ينفعش ان انا اجي اطلب منك حاجه او اقول لك تعالى شوف انا مالي. فاتصلت بالمحامي بتاعي قلت له يا استاذ سمير ده دلوقتي نمره تليفون الاستاذ عبد الغني، اتصل بيه وشوف الموضوع ده احنا هنحله ازاي ونخلصه ازاي. اتصل بيه رد عليه مره وما ردش 4 5 مرات، ورد مره وما ردش 4 5 مرات، وكل مره بس هو ايه لا دي بس 4 ايام، طب اديني اسبوع، طب كمان 10 ايام، لغايه لما فات النهارده 5 شهور من تاريخ الواقعه بتاعتنا الى النهارده 5 شهور. طب انت النهارده يعني معلش الفنان محمد رمضان كان ابسط حاجه انه في خلال الفتره دي مثلا سماعه التليفون. ازاي يا كابتن اشرف عامل يعني حته جبر خاطر؟ wuxuu yiri waxaan la hadlay markii xaaladda noocaas ay mareysay maxamed ramadaan igu soo jawaab waayay maalin iska dambeysay balan la siinayo waxaan wacay yiri maxamigayga waxay dhahan abokaatooda maxamigaygan wacay arintan u sheegay yiri sidii aan maxamed ramadaan telefoonka loogu wacay mar uu qabanaya mar ma qabanayo yiri waan ku daalay waan ku rafaaday muddo ilaa hadda waxa laga joogaa yiri 5 bilood laga joogaa dhibaatada ay ku dhacday ilaa hadda maxamed ramadaan wax jawaab uu siiyay ilaahay abuurtay ma jiraan yiri war xaaladaada ka waran caafimaadkaaga ka waran xaaladaada maxay maraysaa ilaa hadda wax jawaab ugu soo laba celiyay ما jiraan yiri wala sii daawna ايه ظروفك عامل ايه اللي هي حتى من حته ان ايه يا اخي ده يعني حته جبر خاطر. حتى انا مش عايز منك حاجه، انا عاوز منك ايه؟ اولا كتر خيره جدا جدا ان هو اعتذر، يعني هو اعتذر
على الميديا على المرأة ومسمع من الجميع، ووعد الأستاذ عمرو أديب، قال له ده وعد مني ليك وقدام البرنامج ان اللي هيطلبه الكابتن اشرف انا هنفذه. وانا ابريشيت جدا واقدر لهذا، بس انا كنت منتظر انه يكلمني بعد المداخله دي، لكن لسه ما كلمنيش. ومش هستنى ان حد غيره يكلمني، يعني مش هستنى اي طرف وسيط يكلمني من حواليه، انا لا، انا لازم الفنان محمد رمضان زي ما كان معايا في الطياره بنتكلم مان تو مان يتكلم معايا. انا زي ما انت شايف انا لا هنفعل ولا wuxuu yiri maanta wax oo kabtanka ku dhacnay waxaan anaga u sabab ahaa aniga maxamed ramadaan ah ayaa u sabab uu yiri kabtanka wixii maanta ku dhacay dhibaatada ku dhacday waxaan sababteeda ahaa waay waa sida hadda kabtanka u sheegay wuxuu yiri waa khirtay nin wanaagsan waaye wuxuuna igu yiri insha Allah bilaal kareem dhibkan kugu dhacay inaan aniga garabkaaga istaago oo wax walba sababteeda ay ku dhacdana insha Allah bilaal kareem waan khirad doonaa uu yiri hawshaadana waan ku jiraa insha Allah bilaal kareem duwala uu dilay raala ka noqdo kule ixtiraafkiisa uu dhiibtay wuxuu yiri dambigan aniga galay kule insha Allah waxa laga sugayaa ninkaasi sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo wanaagiisa inuu dib ugu soo celiyo wixii meeshaas ka dhacayna mas'uuliyaddeeda inuu isaga qaado waayo ninkan inuu la hadlay oo 60 jeer uu la hadlay uu dhahay waxaan ma anfacay kada nihaayadin uu soo geliyay kule ninkaas mas'uuliyad saarneed waa ka soo baxay wuxuu yiri kada ma anfacay kule diyaarad socotay qof lama dagaalaysid ama diyaarad istaagsan qof ma dhehaysid waxaana sameeyeen dagaal khab ima waxaan anfacay ma adduunka sharciga lagu kala baxaa nidaam iyo dastuur ay leedahay ninkan waa nin fanaan waa nin actor caan ah adduunka laga yaqaano lama dhihi karo maxamed ramadaan iyo kabtankii diyaarad wadaa isfiiray kadib dartooda isku fiirin taasna waa sumcad xumo kale oo dhibaato ah marka ninkan sharaftiisna waa dhowrtay laakiin wixii xaq uu lahaa waa ka hadlay wuxuu yiri ma anfacay klibkani inaad meeshan ka duubto runtan waan kala hadlay yiri kule wixii mas'uul ah waxa qaadan doona maxamed ramadaan actorka caanka ah oo masaarida ah ayaa qaadan doona kule in ma naqaano in xurriyadiisa loo soo celin doono kabtanka shaqadiisa uu ku soo noqon doono taasi ilaahay subhanahu wa ta'ala wala isla daawan doona wixii soo kordho fadlan waxaan ka codsanayaa video haddii ku cajibiyo commentiga inaad ku soo qorto okay waaye mar walba laag way muhiim ay tahay waxay tahay dhiirigelin mar walba video ku soo diyaariyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.